dawladda hoose ee magaalada Berbera ay wehelinaysaa hay'adda GIZ iyo ururada arrimaha bulshada ee magaalada Berbera ayaa maanta 1200 geed u qaybiyay xaafadaha iyo iskuulada kala duwan ee magaalada Berbera kuwaasi oo lagu beerayay wadooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada korna loogu qaaday qurxinta iyo waliba bilicda magaalada Berbera mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Berbera iyo gudoomiyayaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera oo halkaasi ka hadlayay bulshada reer Berbera ugu baaqay in laga wada qayb qaato sidii loo beeri lahaa dhirtani isla markaana loo ilaalin lahaa waxaynu joognaa goobtii saddexaad ee aynu ku qaybinayno dhir ololahani wuxuu daba socdaa ololihii aynu shalay fulinay dawladda hoose hormuudka ka ahayd iyadoo kaashanaysa ururada bulshada ee kala duwan maanta waxaynu qaybinaynaa sidaan hore u soo sheegnay 1200 geed oo aynu ku qaybinayno xaafadaha iskuulada iyo goobaha xafiisyada xarumaha dawladda iyo goobaha ganacsiga intaba inuu ugu talagalay lagu beero xarumaha dawladda dugsiyada wadooyinka lana siiyo dadweynaha waxa fulinaya hawsha hormuudka dawladda hoose waxay kaashanaysaa ururada bulshada sida injooyada kala duwan oo la shaqeynaya xaafadaha gudiyada xaafadaha hay'adda GIZ wasaaradda deegaanka heer qaran afwan hay'adana xaq hore kaga daro halkan kullee waxa hawshan gacanta ku haysta yadfo oo nooga wakiilahayd in hawshan fuliso waxaan kula dardaarmaynaa dadka reer Daawo aan dhirtan u qaybinayno in qof kasta geedka gacantiisa soo galo uu ilaaliyo beero xoolaha ka ilaaliyo raadka ka rabo dayac tiro dhirta waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha xaafadda Daawo guddoon barbalka geed inaad beertaan rajaynaynaa adiga iyo xaafadaada anigoo ah gudoomiye ururka yadfo hawshan gacanta ku hayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga Daawo oo hawshan nagala qayb qaatay waxaan u soo jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer xaafadda reer Daawo inay dhirtan sidii loogu talagalay uga faa'iideystaan Khalid Xasan Nuur shabakada caalamiga ee Caynaba News Berbera